dawladda waxa ay maamul ka dhistay deegaanada Sool iyo Sanaag waqooyi bari loo bixiyay maxay tahay aragtidaada ku aadan dhismaha maamulkaas oo anuguna inay Puntland diidan tahay haddii aad taageersan tahay maxay tahay aragtidaada kale ee ku aadan maamulka ay dawladdu rabto inay gedo ka dhisto إلى جوجالة بنان maamulna doorashada baa laga qabanaya kuwana wax mandatekeedu dhacayna waxa leeyahay doorashada ban laga ma qaban karo waxyaalaha ku sheega isburinaya oo madaxweynaha oo kula jiro anaga sideena waxaan aaminsanahay qasabka waa ka soo horjeednaa qof midnimo loo qasbi karana ma jiro qof kala go' loo qasbi karana ma jiro dadkuna inay maamul aspiration kooda ka turjuma ay dhistaan oo madax banaan yihiin oo anaga wax aan faragelinayno maaha laakiin waxaan diidanahay kaliya in qasab wax qasab la yiraahdo oo ku celinaya qof midnimo qasab ku keeni kartana malaha qof kala go dadku qasbi kartaana malaha dadka waa in loo daayaa aspiration kooda ay ku dhisanayaan ama rabitaankooda maamulka ay rabaan inay ku dhistaan taas anaga aaminsanahay laakiin waxa muhiimka ah waxay tahay in anaga waxaan rabnaa ay noqdaan hadda madaxweynaha wuxuuna yiri qodob in kaga tanaasula doorashada idaafa madaxweyne waxaan dastuurka dhama doorasho u bedelatay dastuurka dhama markaa bedelinaysa doorasho u bedelatay may wuxuu yiri intaan iga kaca oo macnaheedu uu yahay doorashadan oo loo bixiyay doorashada federaalka ah hadda waxay inii sharaxo single constituency la yiraahdaa madaxweynaha colkiisa waxay isku sheegeen gobollo looma baahna deegaano kale looma baahna dalka dhanba waa hal deegaan doorasho oo adoo Puntland ka soo jeeda ama Soomaaliland ka soo jeeda ama Jubbaland ka soo jeeda ama meel kale ka soo jeeda waxa laga yaabaa in codkaaga lagu qaado maadaama xisbi lagu qaadayo dad badan oo hadda taageersan oo baarlamaanka waxay u sacbinayaan waxa waaye wadadan laga yaabo inay deegaanadoodii doorasho u doona karin marka taasay raali ka wada yihiin ta kale gada waxa laga sameeynayo annaga waxaan u aragnaa inay tahay xasilooni darro laga abuurayo deegaan iyo dhul Soomaaliyeed waliba gobolkaas shantii sano horane saas u dhibanaa gada waxay ahaa jirtay gobolka ardaydeedu waxbarashada ugu fiican ay haystaan sababtoo ah macallimiinta ka timaada NFD ayaa macallimiinka ahaa jirtay shantii sano hore colaadu ku dhameystay shantaan hadda colaadu ku dhex jira war ha loo turaan leeyahay gobolkaas aniga ha loo turo asaga gobolkaas ah waa maasantahay